wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Nuur Caraale Duur ayaa maanta ka dhoofay gegida caalamiga ee diyaaradaha ee magaalada Berbera isagoo u sii jeeda wadanka South Africa isla markaana sii maraya magaalada Addis Ababa ee Ethiopia. Wasiirku waxa uu tilmaamay inuu kaga qayb galayo shir ay wasiirada arrimaha gudaha ee qaar ka mid ah wadamada Afrika ay ku yeelan doonaan dalkaasi oo lagaga hadlayo diiwaangelinta shucuubta kala duwan ee ku nool wadamada Afrika. Waxaanu tilmaamay in wasaaraddiisu ay ku hawlan tahay inay wadamada ka qayb galaya iyo waliba hay'adaha caalamiga ee ka qayb galaya inay kala hadlaan in loo helo hawsha diiwaangelinta dhaqaale lagu socodsiiyo. waxaanu tilmaamay in diiwaangelintu ay kala saarayso muwaadinka iyo waliba qofka aan muwaadinka ahayn. wasiirku arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisi ka mid ahaa inaynu la diiwaangeliyo dadkeena si loo ogaado dadka dhulkan u dhashay Somaliland ay xaq u leedahay inay iyagu yihiin dad muwaadiniin si looga saaro dadka kale. marka bulshadeena inaynu naqaano wax badan bay ka taraysaa noloshii, waxay wax ka taraysaa nabadgelyadii, waxay wax ka taraysaa caafimaadkii, waxay wax ka taraysaa wax kasta. marka shirkaas oo muhiim badan aan isla weynoolahay oo wasiiro badan ka soo qayb galaya qaranka wasiiro insha Allah. inaynaaba waxa weeye waxaynu diyaar u nahay inaynu dadkeena diiwaan gelino. waxaynu markaa u ololeynaynaba waxa weeye sidii aynu kaalmo dhaqaale u heli lahayn maadaama aanaynan deyno dhaqaalahan aanaynan dabool karin in dhammaan dadkeena la diiwaan geliyo. laakiin wixii aynu diyaarsanay baynu geynaynaa, waxaynu u baahanahay insha Allah. waa markii ugu horeysay ee wasiirku shir caalami ah oo noocan oo kale ah ay ka qayb galaan wasiirada kala duwan ee arrimaha gudaha ee wadamada Afrika uu ka qayb galo. Cabdikariim Saciid Saalax, telefishinka caalamiga ah ee Home Cable TV, Berbera.